السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داود يا dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimaan idinka diyaarinay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha caalamka kubadda cagta intaanan barnaamijkeena guda gelin waxaan idinka codsanayaa asxaabta inaad nagu dhiirigelisaan subscribe like siisaan barnaamijka si uu gaadhaan asxaabtiina sidoo kale commentigana waa nagu soo qori kartaan wixii tala bixina ومahadsantiin asxaabta mar kasta waa idinka mahadnaqaynaa sida aad noo garab taagan tihiin aan ku bilaabo barnaamijkeena subaxnimo xidigii hore ee kooxda Barcelona Daniel Alves comeback oo soo noqonaya Daniel Alves ninkan nin cajiiba sanado badan ayuu ku soo qaatay kooxda Barcelona waxa uu kula guuleystay guulo badan iyo koobo badan ayuu la gaaray maanta waxa uu ku soo laabanayaa gegidii uu ka tagay 5 sanadood ka hor isla markaas oo la midoobi doona saaxiibkiisa Xavi Hernandez Xavi maanta ma aha isagu ciyaartay laakiin waa tababare markii uu soo laabtay Daniel Alves daafaca midig markuu ku soo laabtay kooxda Barcelona iyo gegidii inta badan ku soo caanamaalay Camp Nou ee uu guulaha badan ku soo hooyay isagoo dareenkiisa cabiraya lana hadlay 10,000 oo taageerayaal waxa uu sheegay inuu halkan u yimi inuu guulo waaweyn la gaaro kooxda mar labaad isla markaana inuu caawiyo kooxda Barcelona kana saaro waqtiyada adag ee ku jirto dhanka kale waxa uu sheegay Daniel Alves inuu soo celin doono saaxiibkiisii weynaa ee Lionel Messi kuna qalqalin doono kooxda inuu mar labaad ku soo laabto dhanka kale tababare Xavi Hernandez waxa uu doonayaa xidiga waaweyn ayaa la sheegayaa inuu suuqa January doonayo sida xidiga ay uu iminka kooxda kula soo shaqeeyay Al-Sadd ee Baghdadi waa garanaysan asxaabta oo nin u dhashay dalka Algeria waa asxaabul mahras marka waa ninkii koobka u qaaday sanadkii dhaweeyay ugu dambeeyay koobka Afrika 2019 ninkan waxa uu saftay naadiga Al-Sadd 159 kulan waxa uu dhaliyay baa leeyahay 154 gool waxaanu caawiyay baa leeyahay 44 gool balka warama waa cajiib waxa la leeyahay kulan kasta gool ayuu dhalinayaa dhanka kale xulkiisa ayuu saftay baa leeyahay 44 kulan waxaanu dhaliyay 22 gool iyo wax ka badan baa la sheegayaa dhanka kale Lionel Messi xalay waxa uu ku guuleystay laacibka ugu wanaagsan sanadka isla markaana waxa siisay shabakada gool taas oo uu ku barbareynay rikoodkii uu hore u dhigay Cristiano Ronaldo ama Cristiano Don isla markaana xalay ayaa odayga la cumaamaday mar labaad ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa 2020ka ee sanadkiina aan soo dhaafnay isla markaana taageerayaal badan ayaa u codeeyay isagoo kaga guuleysto ka dulqaaday Cristiano Don dhanka kale shabakada Catalaanka ka soo baxda waxa ay sheegaysaa in madaxweynaha Barcelona isaga laftarkiisu uu sheegay inuu suuqa January keeni doono naadiga Andrea Iniesta iyo Lionel Messi isla markaa odaygu waa oo dadaalaya reer Barcelona odaygu way dadaalaya ha iska qayliyaan mucaaradku iyagu dhanka kale hadaynu eegno kooxda Manchester United waxa la sheegayaa inay ciyaaryaha soo socda ama xilliga soo aadanba ay ka diri doonto shaqada tababare Ola isla markaana ay sidii dhacday sanadadii hore 2018 Jose Mourinho oo kale dariiqiisa marin doonto ninkan waa iska galab hadda isagu kooxdu mar waa ku faysaa mar waa kacaysaa kulan waa badinaysaa kulan waa laga badinayaa kulan waa la bareejaynayaa isla markaana waxa ay lagu canaantaa inaanu lahayn shax joogtaa shabakada Manchester United Evening waxa ay sheegaysaa in ninkan shaqada laga diri doono sida ugu dhaqsaha badan isla markaana tababarayaal badan ayaa u sharaxan booskiisa inkastoo ay leedahay shabakadu ku darayso in Zinedine Zidane inuu diidan yahay shaqada Manchester United kana doorbiday xulka qaranka France laakiin waxa la sheegayaa tababarayaal badan oo ka ciyaara Premier League sida Brendan Rodgers ka Leicester City iyo tababaraha Ajax ee wadankaasi Netherlands dhanka kale Manchester United waxa ay waayaysaa muddo dan 6 isbuuc ama aan raahdo 11 ciyaarood waxa ka maqnaan doona laacibkooda Paul Pogba waxa la leeyahay waxa uu ku dhaamay waajibaadka xulka Faransiiska isla markaana waxa naadigu dirayaa Dubai si halka lagu soo dabiibo Paul Pogba iyo Manchester United in weydba waa kala laalaadeen ninkan isagu heshiis kuma darin waqtigu waa ka dhacaya heshiisku qandaraaskiisu waa dhacaya kooxda inkastoo bandhiga cajiib badan oo qurux badan soo bandhigay bilowgii Premier League isla markaana uu 4 kulan caawiyay 7 gool haddana
waxaa la leeyahay ninkani iyo kooxdani xifaaltan iyabaa ka dhexeeya iyo xurguf weyn. waynu eegi doonaa bal waxaa kasoo baxa. dhanka kale kooxda Liverpool ayaa war fiican ka heshay tababarkeedii shalay ee ka hor kulanka Arsenal ay ugu diyaar garoobayeen. isla markaana waxaa la leeyahay waxa uu soo noqday 3 xidig oo kamid ah xidigaha kooxda koobaad sida Sadio Mane, Milner iyo Henderson. odaygan tababara Klopp waxaa lagu itixaamay dhaawacyo fara badan. waxaynu ogeyn sanadkii hore in Virgil van Dijk iyo 3 kale difaaca kulamaanba ay sanadkaba ka maqnaayeen. isla imankana weeraryahankiisii Robert Firmino isagu waa maqan yahay inta sanadka ka hadhay. Harvey Elliott isna waa ka maqan yahay. xidiga badan oo Naby Keita ka mid yihiin baa dhaawaca. sidoo kale waxaa la leeyahay waxa ugu weyn oo ka cabsi qaba kulanka Arsenal waa Andrea Robertson kabtanka xulka Scotland kaasoo la leeyahay isna waxa uu ku dhaawacmay waajibaadka xulka qarankiisa. ninkii war odaygii Virgil van Dijk ha waa hadla waa 3 jir odaygu waa markii ugu horeysay noloshiisa koob adduun ciyaarayo. waxa uu yiri kadib ciyaartii ay ugu soo baxeen koobka adduunka ee Qatar xulkiisu ku tagay waxa uu yiri aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. odaygu ooyaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan u soo baxay. tani waxay ahayd rajadayda inaan mar un ciyaaro koobka adduunka. waa eegi doonaa bal wuxuu Qatar ka sameeyay 2022 mundiyaalka kubadda cagta adduunka ee lagu qaban doono isla wadankaasi. ugu dambeyntii waxaan halkan idinku soo gudbinayaa asxaabta xulalka u baxay koobka adduunka ee iska xaadiriyay Qatar isla markaana ka soo jeeda qaaradda Yurub. waxaa ugu horeeyay Germany, England, Holland, Serbia, Denmark, Croatia, Belgium, France iyo Switzerland dhammaantood iyo Spain dhammaantood waxay iska xaadiriyeen mundiyaalka kubadda cagta adduunka ee lagu qaban doono dalka Qatar. haddaba waxaan halkan sidoo kale idinku soo gudbinayaa xulalka ciyaari doona kulamada bugbaxa ayaan idinku hayaa halkan. isla markaana waxaa ku jira xidiga waaweyn kuwaasoo laga yaabo inay seegaan koobka adduunka ee Qatar 2022 odaygii Cristiano Ronaldo ninkii kale oo garanaysan isna xulka Poland iyo kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski rag hore oo ka hadhan sida ninkii muxuu ahaa ninkii la oran jiray Erling Haaland raggaasi hore u daayeen. Gareth Bale baa kamid ah ragga laga baqayna ka hadhan. Italia oo kale rag waaweyn ayaa u ciyaarayay sida Frank Kessié. kooxahan waxaan xulalkan ciyaari doonaa kulamada bugbaxa ee Yurub kuwaasoo 3 xul laga rabo. waxaa kamid ah Portugal, Sweden, Ruushka, Ukraine, Wales, Italia, Czech, Poland. waa eegi doonaa